السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال كسو دوادا كانالك النقاي ميدي يوتيوب أي النقاي ميدي فيسبوك بيج عاونا وركينا وحو كسابسن yahay duqeyn ka dhacday gobol ku yaala dalkaas Ruushka oo xad la leh Ukraine dowladda Ukraine oo bilowday in ay duqeyso gobolada Ruushka ayaan ka hadli doonaa ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay tobanaan gurina way ku burbureen qaraxyo ka dhacay magaalada Belgorod ee dalka Ruushka oo u dhow xuduudda Ukraine sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ruushka barasaabka Belgorod Vyacheslav Gladkov ayaa ka bixiyay tiro qaraxyo ah oo ka dhacay magaalada taasoo qiyaastii 40 kiiloomitir waqooyi ka xigta xadka Ukraine saddex qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen kuwaas oo ay ku jiraan cunug 10 jir ah iyo nin isbitaalka hore ugu jira oo xaaladiisu halis ahayd ayuu Gladkov ku soo qoray qoraal uu soo dhigay bartiisa Telegramka ugu yaraan 12 apartment iyo 39 guri ayaa soo gaaray burbur oo ay ku jiraan 5 guri oo la burburiyay ayuu yiri Gladkov ayaa sheegay in sababta qaraxyadan ka dambeysay ay baaritaan ku wadaan fiidiyooyo weerarka cirka oo dhowr ah ayaa lagu soo bandhigay baraha bulshada habeen hore oo uu ku jiro mid uu soo dhigay Igor Girkin taliyihii hore ee militariga Ruushka xildhibaan Andriy Klishas oo ka tirsan baarlamaanka Ruushka ayaa Ukraine ku eedeeyay inay duqeymo ka geysatay Belgorod wuxuuna ku baaqay in jawaab adag laga bixiyo dhimashada dadka rayidka ah iyo burburinta kaabayaasha rayidka ee Belgorod waa fal gardaro toos ah oo dhanka Ukraine ah waxayna u baahan tahay in laga bixiyo jawaab talaabo military degdeg ah Klishas ayaa ku qoray Telegramka Moscow ayaa ku eedeysay Kiev dhowr weerar oo ka dhacay Belgorod iyo gobolada kale ee xuduudka la leh Ukraine taniyo markii Ruushku bilaabay duulaankii uu ku qaaday wadanka dariska ah 24 Febraayo ee sanadka 2022 eedeymaha Ruushka si madax banaan looma xaqiijin karo Ukraine ma sheegan mas'uuliyadda laakiin Ukraine ayaa ku tilmaantay dhacdooyinka inay yihiin argoosi ka dhashay ficilada xun ee Ruushka sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters madaxa shaqaalaha guud ee ciidamada qalabka sida ee Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda cirka u gameen ilaa 15 nooc oo gantaala dhammaan jihooyinka dagaalka dhowr kanaal oo Telegramka taageera Ukraine iyo warbaahinta madax banaan ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in weerarka cirka uu ahaa dandaasi ay geysteen ciidamada Ruushka iyagoo soo xigtay sawirro la sheegay inay muujinayaan haraagii gantaalkii Pantsir ee Ruushku sameeyay ciidamada Ukraine ayaa sheegay in askartooda ay dib uga gurteen magaalada istiraatiijiga ah ee bariga magaalada Lysychansk kadib toddobaadii ay dagaalo ba'an kula jireen ciidamada Ruushka si loo badbaadiyo nolosha difaacayaasha Ukraine waxaa la gaaray go'aan ah in laga baxo ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay ciidamada iyagoo sheegay in Ruushka uu ka awood sareeyo tiro ahaan iyo qalab ahaanba